qaybaha kala duwan ee barnaamijku isku wada qiimo maahan kuwa ayaa aad muhiim ugu ah kuwana waxaan oran karnaa waqti ayuun baa kaaga lumaya waxaanu ka hadlaynaa qaybo kamid ah barnaamijka kuwaas oo faa'iido lahayn xilligan balse ay weli dadyoga qaar bartaan oo waqti ku bixiyaan taa beddelkeedana maxay tahay waxyaabaha qiimaha leh ee ay tahay focus ka saartid soo dhawaad dhalinyaro luqadaha barnaamijku waxay u shaqeeyaan si la mid ah luqadaha aynu isku fahanno ee ku wada xiriirino waxay leeyihiin xeerar aasaas u ah iyo waxyaabo ay tahay si fiican u fahamtid sidoo kalena waxay leeyihiin qaybo aan markasta muhiim ahayn inaad baratid oo laga yaabay inaadan marnaba adeegsan luqadaha caadigana waxaynu ka adeegsanaa qaybo kooban laga yaabee inaadan weligaa isticmaalin qaybo ka mid ah erayada Soomaaliga mana ahan arrin xun balse waa dabciga luqadaha ay u jiraan markay timaado suuqa shaqada ee barnaamijka ama dhisida projectada real life-ka ah ee aan ahayn kuwa aad kaliya ku sameynayso practice waxaad arki kartaa in waxyaabo badan oo maleynaysay inay muhiimad weyn leeyihiin aysan ka shaqayn real life-ka waxyaabahaasi ayaan muuqaalkiina ku arki doonaa iyo beddelkoodii kuwa ay tahay inaad barato aynu ugu horeysiino PHP waa luqad awood badan qayb weyn ka ah dhisida websiteska xilligaana baahida loo qabo adeegsiga PHP waa mid si yaraanaysa mana ahan investment fiican oo ku sameyn karto xirfadaada development-ga waxaana PHP beddelkeeda la adeegsadaa oo backend-yada lagu dhisaa Node.js ama Python waa kuwa ka flexibility badan ama ka dabacsanaan badan PHP lehna communities waaweyn taasi oo muujinaysa inay ka horumar fiican yihiin PHP barashada SQL adigoon faham fiican ka haysan database-da SQL waa xirfad qiimo badan halkanina ugama jeednayna la baran dhalinyaro badan ee SQL barta iyagoon wax aqoon ah ka haysan database design-ka iyo xeerarka database-du ku shaqeeyaan inaad taqaano sida database loo abuuro ama selection loogu sameeyo database macnaheedu maaha inaad taqaanid sida loo dhiso structureska database-da lagu adeegsado real life-ka waxaa focus ka saartaa barashada database normalization oo ah sida loo qaabeeyo datada marka la joogo relational databaseska waxaad barataa indexing-ka NoSQL databaseska iyo SQL databaseska mid kastaba kood la adeegsado ee uu ku habboon yahay dad badan ayaa sidoo kale weli waqti kaga luma barashada frameworks badan sida React, Angular, Solid.js iyo kuwa kaleba taasina waa jahawareer iyo waqti lumis waxaa ka muhiimsan inaad baratid luqad ay frameworkska rabto ku dhisan yihiin tusaale ahaan haddii aad JavaScript si fiican baratid uma baahanaysid inaad waqti badan ku bixiso frameworks badan hal ama laba ayaa kugu filnaanaya waxyaabaha sidoo kale xilligan ay dhalinyaro badani waqti ku bixiyaan wax ka mid ah CSS animations qurux badan inaad websiteska u sameyn karto waa arrin fiican balse ha ku bixin waqti badan inaad baratid sameynta nooc kasta oo CSS animation ah taa beddelkeeda baro basicska animationska CSS kadibna baro adeegsiga library-yada lagu sameeyo animationska sida GSAP kuwaas oo ka caawinaya inaad si dhaqso badan u sameyn karto animations fiican ha xifdin dhammaanba commandska Git sidaynu marar badan soo xusnay Git waa version control muhiim ah oo ay tahay inaad barato markaad tahay developer haddaba waxaa muhiim ah inaad kaliya baratid commandska Git ee aadka loo isticmaalo sida add, commit, push, branch iyo kuwa la midka ah ha ku daalin barashada dhammaanba commandska Git ma wada isticmaali doontid si aad focus ku saartid barashada qaybaha saxda ah ee muhiimka ku ah kow waa inaad fahantid qaybtan barnaamijka ah ee baranayso suuqa shaqada faa'iido ma u leedahay si ma tahay qayb loo baahan yahay su'aashani wax ku saf garan kartaa waqti badan oo kaaga bixi lahaa barashada qayb aan muhiim ahayn qodobka labaad waa inaad focus ka saarto barashada fundamentalska ama asaasiyaadka luqadaha barnaamijka problem solving-ka iyo xalinta errorska iyo inaad fahantid sida u dhisan yihiin systemyada ay u shaqeeyaan qaybahani waa kuwo markasta muhiim ah oo aan outdated noqon qodobka saddexaad waa inaad waxyaabaha qaar dib u dhigato ilaa intaad uga baahanayso tusaale ahaan halkii aad xilli hore baran lahayd qaybaha advanced-ka ee database systemska dib u dhigo ilaa aad sameynayso project u baahan xasuusnow barnaamijka marka la joogo maaha inaad wax kasta taqaano waxaa muhiim ah inaad taqaano waxyaabaha saxda ah u baahan tahay marka iska dhaaf qaybaha aan aadka muhiimka kugu ahay si aad waqti ugu saf garaysato la wadaag muuqaalkan asxaabtaada kuna soo biir Keetag Soomaali mahadsanid